السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان umada muslimiinta waxaan leeyahay meel wadunida ka joogaan Ramadaan Mubaarak. Qisadani waxay ku saabsan tahay gabar arday ah oo magaceeda la dhihi jiray Maryama. Maalin kasta waxay ka soo dib dhici jirtay iskuulka. Maalin kasta waxay iimaan jirtay dhamaadka xisada koowaad. Macallimada u qorta luqadda Carabiga ayaa aad uga caroon jirtay. Mar kasta oo ay soo daahdana way ciqaabi jirtay. Gacmaha ay ugu garaaci jirtay usha. gabadhu waxa ay ku hadasho mataqaan maalin kastana waxa ay ku hor-oon jirtay ardayda asxaabteeda hortooda. Arrinkii ayaa sidaas ku socday. Maalin kasta way soo dibnacaysaa macallimaduna waa ay garaacaysaa. maalin maalmaha ka mid ah oo ay macallimadu u sameynaysa aalmiitada subaxii ayay aragtay Maryama oo dhaqaysa gaari. aad ayayna ula yaabtay macallimadii. sidaasina waxay u sameynaysaa si ay u masruufto walaalaheeda ka yar. subax walba aroortii ayay soo toosi jirtay, waxayna aadi jirtay shaqada si ay u hesho xoogaa lacag ah kadibna ay aadi jirtay iskuulka. macallimadii ayaa wax badan ka shalaysay waxay aragtay. yaa Allah, subax walba waan garaaci jiray maadaama ay soo daahi jirtay, balse waxay u soo daahi jirtay waa gar. macallimadii ayaa u laabatay gurigeeda. maalinkii xigtay Maryama ayaa soo gashay kalaaska, waana soo daahday sida caadadu ahayd. waxayna taagtay gacanta si macallimada ugu abaalmariso daahida. laakiin macallimadii ayaa fiirisay gabadhii ayadoo ay ilintu ka daadanayso indhaheeda. way u soo dhawaatay, laabta ayayna gelisay, waa ayna u cudur daaratay. ardaydii kalaaska oo dhan ayaa oohin la wada dhacay. yaa Allah, meeqa caruur ayaa joogta dunidan kuwaasoo shaqo bilaabay ayaga oo ka yar 10 sano. meeqa caruur ayaa hareeraheena ku sugan oo haystaan dhibaatooyin kuwaasoo da'doodu ay ka yar tahay 10 sano. yaa rab, Allah ayo arsaaq dhammaan fuqarada. Allah ayo xafid dhammaan caruurta. Allahumma aamiin. asxaab, waxaan ka rajeynayaa sheekadan inaad gaarsiisaan qof walba oo ka mid ah asxaabtiina. waxaa laga yaabaa maadaama aynu ku jirno bisha barakeysan ee Ramadaan in walaalkaaga ama saaxiibkaaga uusan haysanin waxa uu ka afuro oo adigana aad haysto afur wanaagsan. waxaan rajeynayaa inaad caawiso walaalkaaga ku baahan inaad caawiso, aadna afirso, adigana ay ku noqoto sadaqo iyo ajar Allah xaqiisa aad ka xisaabsanaysid. Allahumma aamiin. रमजान का रोज़े आए, दिल झूम झूम जाए।